kadib doorashadii shalay baarlamaanka labaad ee galmudug ay ku doorteen madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb waxaa lagu qabtay banaanbax lagu taageerayay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waxgaradka galmudug ayaa soo dhaweeyay talaabada wanaagsan ee doorashadii madaxweyne Qoorqoor ay ku doorteen iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cabdi Kaariyaad xilkii loo gardaajo guudka loo saaray beelaha galmudugow aan garab istaagno geesiga inoo kacay gacan aan ku siinay garabkiisa joogsana calanku waadiiday qoorqoornimaanahayn madaxweyne qoorqoor oo guulaysa galab walbaaba مسؤولين هرية بالشدة قيبه هذا كردوان أي عاد وسدوي معمول بسدة دولة قبلات كجلمدوك يجوا شيء إني مدينين حنانكا يحل انت خلافات كجلمدوك وحان توجنا مال قراح أدو كلول وإن كان هذا علنا حقيقة دي سدة دولة لماذا عبريسان إيو فكر كينا إيو سدة أوربتان دولة لماذا آدي إن كان هذا علنا إلى ماذا إنك جارتو حفلة تاني وحيكون سابسنت هاي soo dhaweynta iyo u mahadcelinta dawladda cusub ee shalay ku dhalatay caasimadda galmudug labadii bishii labaad 2020 oo ay ku soo baxeen hogaankii ama golihii ugu sareeyay sida madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoonkii baarlamaanka iyaguna ka horeeyay 17 bishii Janaayo lagu doortay Dhuusamareeb salaanka bacdi hadalku ma badna waxaan u nimid taageero iyo soo dhaweyn aan taageerayno dawladda noo dhalatay cusub waxaan taageeraynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa dawladda noo dhalatay baan taageeraynaa waa in garab taaganahay soo dhawaada kaariyo qoorqoor ayaan soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa oo u soo dhaweynaynaa bulshada reer galmudug waxay ka daashay in badan 4 sano oo mugdi ayay soo martay waxaan leenahay 4 sano oo iftiin ah oo la tartanno dadka nala midka ah ama deegaanada nala midka ah dawlad goboleedyada kale waa in aan galnaa ilaahayna kugu guuleeyo madaxweynenimada waxaan kaloo leenahay hal la shaqeeyo annagu waxaan la shaqeynaynaa mar hore iyo mar dambaba magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa laga dareemayaa soo dhaweynta doorashadii shalay balse waxa ay isweydiinayaan habka ay wajahayaan mas'uuliyiinta xalinta iyo ismarawaaga ee galmudug Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan 5 Somali TV Dhuusamareeb